waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono bal sida ay loo xallin karo iyo waxyaabaha sababa in xagjirnimada ay ku badato dadka Soomaalida gaar ahaan ay saameyn ku yeelato dhalinyarada hay'adda sidra oo barnaamijkaasi fududeynaysa waxay soo bandhigtay daraasad ku saabsan bal waxyaabaha sababaya iyo sida looga hortagi karo iyo waliba xalalka ugu dambeeya ee arrimahaas lagu xalinayo waxyaabaha ay soo bandhigtay daraasadani waxa kamid ah in sababaha ugu weyn ee koosgareynaya ama sababaya in xagjirnimadu ay Soomaaliya ku fido ay kamid tahay xaalad hay'adaha dawladda oo aad u liita siyaasadda oo ay ka jirto cadaalad darro ay tirsanayaan dadka Soomaaliyeed arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo iyaga laftigooda ay ka dhex muuqato cadaalad darradu xagga arrimaha maxkamadaha oo iyaguna ay ka jirto cadaalad darro aad u baahan iyo sidoo kale joogitaanka ciidamada shisheeye iyo Soomaaliya oo ah wadan qaniimad fara badan Ilaahay siiyay una nugul in ay faragelin shisheeye ku timaado sidoo kale waxyaabaha lagu soo bandhigay daraasadda waxa kamid ah talooyinka in la helo isla xisaabtan guud ama daahfurnaan maamul oo ay samayso dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu in la helo waqti ciidamada AMISOM ay kaga baxaan Soomaaliya oo cad iyo in la sameeyo daraasado qoto dheer oo iftiiminaya waxyaabaha sababi karaya in xagjirnimada Soomaaliya ay sii fido in la helo xal ama wada hadal toos ah oo ay galaan dhinacyada ku lugta leh arrimaha dhibaatada u keenaya amniga Soomaaliya iyo dhalinyarada iyo in la sameeyo barnaamijyo lagu horumarinayo dhalinyarada gaar ahaan lagu dagaalamayo shaqo la'aanta ugu dambeyntiina in nidaamka dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay uga hortagaan arrimaha argagixisada in iyaga laftigooda dib loo eego oo mararka qaarkood ay ka dhalan karaan dhibaatooyin cad abuuri karaan arrimahaasi waa arrimaha ay xambaarsan tahay daraasad ay soo bandhigtay hay'adda sidra halkan maanta lagu gorfayn doono bal arrimahaasi sida ay wax uga jiraan iyo waxyaabaha loo baahan yahay in lagu daro daraasadaasi waxa igala qayb galaya barnaamijka Faisal Maxamed Mataan oo ah la taliye wasaaradda qorsheynta ee Puntland Faisal waxa uu hore uga soo qoray arrimo wuxuu hore wax uga qoray arrimaha Soomaaliya gaar ahaan wuxuu wax ka qoray habka loo dhaqan celiyo dhalinyarada iyagu markaasi ku dhacay ama ka yimid ama ka soo guriya noqday arrimaha xagjirnimada sidoo kalena arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayuu wax badan ka qoray waxa kale oo barnaamijka qayb ka noqonaysa Farxiye Cusmaan Faarax oo muddo 10 sano ka badan u ololeynayay arrimaha dhalinyarada iyo sidoo kale Cabdiqaadir Cabdimaalik Maxamed oo ah agaasimaha waaxda nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta Puntland sidoo kalena baraka ah jaamacadaha ku yaala Puntland waxna ka dhiga arrimaha siyaasadda dhammaantiin soo dhawaada sidoo kale waxa aan mar kale soo dhaweynaynaa dhalinyarada ka kala timid jaamacadaha iyo ururada dhalinyarada ee ku nool magaalada Garowe oo iyaguna barnaamijka qayb ka ah waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dalladda dhalinyarada Bayaan oo qayb ka ah barnaamijkan ama ka qayb qaadatay qabanqaabada ama qabso iyo sidoo kale hay'adda sidra oo kaashanaysa adra oo barnaamijkan soo abaabushay aan ku horeeyo agaasime waa dhigaysatay Cabdiqaadir soo bandhigida halkan lagu soo bandhigay arrimaha sababaya ama xididka u ah in ay Soomaaliya xagjirnimadu ku baahdo iyo xalalkeedaba maxaa kaaga baxay daraasaddan maxaad ku raacsan tahay maxaad isleedahay waa ka dhiman tahay waa lagu daraya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhalinyarada haddii aan u imaado daraasadda tan waxay ka hadashay factories aad u tiro badan su'aasha ay weydiiso ah maxaad ku dhaliilaysaa ama ku daraysaa waxaan ku darayaa anigu tan koowaad factorieska sababi kara inuu qofka dhalinyarada noqdo radical aragti waxa weeye aw xagjir ku noqdo keeni karta hadhowti khilaafaad iyo waxa weeye waxyeello bulsho keeni karta waxa kamid ah culumta ama daraasadda loo yaqaan civic education waxbarashada madaniga ah oo guud ahaan Soomaaliya ka maqan haddaan tusaale yar soo qaato waxa weeye
1960kii waxaa loo yaqaanaa sanadkii xorriyadda Afrika oo wadamo badan oo Afrikaan ah baa xorriyadooda qaatay sidaas la mid ah geeska Afrika 1985 ilaa 1990kii waxaa isbedelay dawlado badan oo waxaa ka dhacay afgambiyo iyo colaado iyo mataqaanaa systemkii isbedelay waxaa ka mid ah Ethiopia oo laga qaaday waxa weeye Mala Zanaawi qabsaday waxaa ka mid ah Uganda oo Idi Amin Dada laga qaaday xukunkii oo Museveni loo wareegay waxaa ka mid ah Djibouti waxaa ka mid ah Soomaaliya marka comparison markaan sameeyno dhammaan dawladahaas kale way wada jiraan oo maantay waxba iskama bedelin systemkoodii waxa isbedelay oo kaliya xukuumadihii markaa jiray iyo dawladihii rejiimkii markaa ka jiray oo waqtiyada dheer soo maamulayay laakiin inaga Soomaaliya waxaan luminay dawladnimadii kow iyo qarannimadii waxa weeye wadankii waa burburay waxa sababayay marka dadka Soomaalida ah gaar ahaan dhalinyarada oo aan aqoon u lahayn inay kala saaraan waxa la yiraahdo dawladda ama nidaamka markaa talinaya ee dalkii macnuhu markaas waxa weeye waxa meesha ka maqan ilaa hadirtaan waxbarashadii madaniga ahayd oo qofka Soomaaliga ah yaani tusi lahayd xiriirka isaga iyo ka dhaxeeya wadanka waxaanu naqaanaa kaliya xiriirka inaga iyana ka dhaxeeya bulshada sida hadaaya uu sheegay baraha barnaamij soo jeedinay xidid baan naqaanaa qaraab baan naqaanaa in adeer baan naqaanaa laakiin ma naqaano xiriirka aniga iyo wadanka naga dhaxeeya xiriirka aniga muwaadiniinta naga dhaxeeya xiriirka qofka kan waxa weeye ku ilaalin kara inuu sometimes ama inta badan ba adduunka sida ka dhacda inuu u dhinto wadankiisa si uu badbaadiyo jiilka dambeeya caruurtiisa iyo magaciisa iyo calankiisa marka waxa weeye waxaan ku soo siyaadinayaa qodobada sababi kara inuu qofku radical noqdo way dhici kartaa inuu social grievance ama political grievance jiro oo radical ka noqotid factors meesha jira laakiin adduunka dhan bay ka dhacdaa inay grievances ka dhacaan waxa xakameeya marka dadku kala duwan yihiin waxa weeye qofkan imisa in la eegbo aqoon u leeyahay isaga iyo cilmiga kan waxa weeye oo bulshada kula noolaan karo runtiina waa mid ka maqan waxbarashadeen nidaamka waxbarasho adduunka principleska ama mabaadiida ugu waaweyn waxa kamid ah in qofka behaviorkiisa bedesho ama habdhaqankiisa iyo ficil celintiisa marka halka leeyahay waxa kamid ah la jeeda qofku wuxuu bartaa ugu weyn waxa weeye sidoo dadka ula noolaan lahaa to learn to live together يعني إنه قفك حبرته أو أي نقطة منهج كقبلارن أو فرينت أي جد بيني منهج وضن إن النقطة ده كان قف كان سو مدة كلولان ولا لها تاساوي حكم مقنت مركا منهج تينا وحبرشوا يسيفيك إدكيشن كلو بهاي الدولة دون الدور كقارته waxaan rabaa inaan Faisal markan siiyo Faisal maxaad ku raacsan tahay daraasadan marka koowaad adoo hadalka Cabdiqaadir agasimahana qiimeynaya maxaad isleedahay daraasadan waa ay ku saxsan tahay ama lagu biirin lahaa okay waxaad u malaysaa in arintan horta hadii aanu si wanaagsan u fiirnaa dhalinyarada marka the word itself hadii la yiraahdo radical macnihiisu waxa ku soo baxaya waxa arkaysaa sawir ah terrorist sidoo hadda Cabdiraxmaan sheegay wadaad gar dheer oo khamiis xiran oo baa ku soo baxaya macnaha sunnadii valueski dadka islaamku lahaa si kale loo bedelay marka waxa ay ku kala duwan yihiin radical iyo terrorist macnihiisu waxa weeye qofku markuu terrorist waxaan la yiraahdo wuxuu leeyahay aragtiyo ama basis kala duwan oo isagu ka qabo macnaha uu ka yar sensitivity ka qabo halka radicalku uu noqon karo qofku either religious ama political radical ma aha qofku kaliya dhan arrimo diimeed inuu xaq jir u noqon karo laakiin waxa jira badana waxyaabo dhinaca political beliefs ka yimaada dhibaatada ugu badan marka anaga radical dadku marka la yiraahdo youth radicalization dhibaatada ugu badan waxay ka imaataa governance system nidaamka dawladda because qofkii waa dhalinyaro waxa uu ku nool yahay wadan aan conditionki uu ku jiro aan loogu talgalin inuu ku noolaado
qofkii waxbarasho wanaagsan looma samayn, waddo wanaagsan looma samayn, iskuul wanaagsan ma helin, caafimaad ma helin, GDP-ga deegaanka ama waddanku ma aha mid maaragtay living standardka dadka ku wada filan. caqabadahaas badan yaa waxay sababayaan social class inuu ka dhasho bulshada dhexdeeda. marka inequality anigu meesha injustice-ka la yiri inequality waa ka weyn. justice-ku waxay ku xiran tahay kaliya judicial system, laakiin culayska ugu badan waxa weeye waxyaabaha radicalka dadku u noqdaan macnaheedu waxaan jeclaan lahaa in waxyaabaha dhalinyaradu ay xag jirka u noqonayaan. waxa ugu badan waxa weeye sinaasho la'aan dhinaca heerka bulsho ah, social class-ka. maxaa weeye garow gudaheeda baad example u soo qaadan kartaa. dadka ina nolol wanaagsan ba haystaa, ina nolol wanaagsan ma haysto. waxayna ku nool yihiin condition isku wada mid ah. maxaa sababay marka inequality-ga? waxyaabaha sababaya waxay keeni karaan qofkan inuu xagjir noqdo oo uu ka hor yimaado kow inuusan aqbalin nolosha uu bulshada kula nool yahay, inuu arko qofkan tuug wax dhacay inuu yahay saasuu nolol u haystaa, adiguna waxa maadan dhicin. waxay qofku ka kalifaysaa marka inuu falal badan oo guraacan sameeyo. waxa qofku waa weel maran dhalinyarada markuu yahay, waxa adeegsanaya mataqaana xoogo kala duwan. xoogaa kala duwan marka midba aragti buu adeegaya, midba argagixisadaan sheegaynaa ah, midba wuxuu yahay dana qabiil iyo dana deegaan iyo dana siyaasadeed ku adeeganaya, midba dana diimeed ku adeeganaya, midba nooc buu adeeganaya. waxyaabahaas marka la isku daro baa qofkii wuxuu noqonayaa qof bulshadii dhinaca ka taagan oo yar xag jir ah. marka anaga policy briefkeena waxaan kaga hadli karnaa kaliya waxa weeye aniga sida ila tahay in la sheego number of recommendations, in tala soo jeedin fudud la sheego, la yiraahdo ABCD baa waxa laga qaban karaa. hadda Soomaaliya waxay leedahay strategy arrintaas si wanaagsan ugu adeegay. waa maxay CVE-ga halkan lagu qoray counter violence extremism-ka hadda waxa loo bedelaa prevention. extremism-ka waa laga tagaa. sababtuna waxa weeye wali waxay u egtahay subject matter-ka in aan si wanaagsan loogu adeegay. marka CVP ama CVE labada waa la dhahaa. kuwaasoo dhan marka waxa weeye actually Soomaaliga soo adeegay CVE-ga waxa weeye counter violence extremism, in ka hortaga arrimaha guraacan ee mataqaana xagjirnimada. marka ka hortag inta sameynaysid extremism-kii prevention-kaas badanaa la isticmaalaa. sababtuna waxa weeye waxa la arkay waxa waddanka ka jira inaysan ahayn waxa anagu ugu yeerayno qofkani waa radical because waa xagjir. waxa weeye arrin diimeed buu xagjira, ma aha, waa been. arrinta diintu waa factor yar oo contribute gareynaya dhibaatada jirta, laakiin waxa jirta shaqo la'aan, waxa jirta faqri baahsan, waxa jira aqoon darro, waxa jira social mataqaana limited social integration. bulshadii iskuma dhex jirto, nin walba jufadiisa gaarka ah uu go'an yahay, xoogaa anaaniya aba ku jirta, qabkiisu iska weyn yahay. waxa weeye waxyaabo badan, qabiilo dhexgelin, bulsho dhexgelin, dad baan dad dhexgelin. sababahaas oo dhan waxay sababayaan in bulshada qayb ka mid ah ay noqoto radical because of ABC. cilmi baarista la soo bandhigay runtii anigu qodobada haday yihiin waxyaalaha sababay ama fududeeyay radicalization inuu dhaco anigu waan ta'kiidiyay, waana ayiday, waxna waan ku darayaa. meelaha aan ta'kiidinaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxa moodaa horta cilmi baaristu inay xoogga saartay waxyaalihii asaasiga in laga tagay, laakiin si kore ay u hadashay. tusaale ahaan dawladdii iyo waxyaalo qaadanaya waqti badan in lagu bedelo, laakiin ay cilmi baaristu ay ka tagtay waxyaalihii asaasiyaadka ahaa ee la rabay hoos in laga soo bilaabo. tusaale ahaan waxaa noqon kara causeska waxyaalaha soo bilaabo sababaya waxaa ka mid noqon kara inuu xun yahay xiriirka u dhaxeeya inta badan waalidka iyo ilmaha oo xiriir wanaagsan uusan ka dhaxayrin. taasina ay keenayso mana aha anagu waxaan Soomaali kaliya aan u leenahay dhaqan ma aha, East Africa oo dhan ba problemkana la wadaagta. tusaale ahaan aabuhu tuu soo tago ilmihiisa lama sheekaysto, wiilkiisa lama sheekaysto, teenage-ka ma dhaho aaba maanta maxaa la soo kulantay, maxaa kugu soo dhacay, maxaad waxba ma u waraysto, xiriir badan
badan lama u laha annagoo og hooyooyinkuna waxa weeyaan waa cidda keli ah oo challenge gareyn ka dha waxa la yiraahdaa radicalizationka maxaa la yiraahdaa challenge gareyn ka dha marka waxaan dhihi karaa waxa u horeeya oo sababi kara in uu yimaado maxaa la yiraahdaa qofku uu maxaa la yiraahdaa radicalizationka sababi kara waxa weeyaan in horta uusan xiriir fiican uusan ka dhaxaynin waalidka iyo ilmihiisa waxyaalaha aan taakiidinaya waxaa ka mid ah oo cilmi baarista lagu soo bandhigay waxa la yiraahdo exclusionka in la helo ay jirto inaan loo dhammayn waxa la yiraahdo wax walba haday noqon lahayd exclusionku ma garanayo waxaan Soomaali ku dhaho exclusionka laakiin waxa weeyaan waa u dhamaansho la'aan weeyaan u dhamaansho la'aan in haday xagga politicalki ahaan lahayd inuu power sharingki aan maxaa qabiilada qaarkood ay ka qadaan oo wiilkii asagoo wax soo bartay ama gabadha iyada wax soo baratay oo aqoonteedii leh oo xirfadeedii leh oo shaqo tag ah ama rabta inay wadankeeda wax ka noqoto ama wadankiisa wax ka noqdo la yiraahdo qabiilkaagu maxaa la yiraahdaa malaha booskan ma uu laha taasoo markaa keenaysa qofkii inuu maxaa la yiraahdaa uu ka xanaaqo arinta uu ka tago waxa kale oo keeni kara dhanka socialka markaan ka fiirino wiilkii quruxda badnaa ama gabadhii quruxda badnayd haday damacdo inay guursato wiil ay ka heshay ama wiil ay istiraahday aleelahay waa shakhsiyad fiican yahay waa wanaagsan yahay hadii la dhaho ma geydid ama ma guursan kadid taasina waxay keenaysaa maxaa la yiraahdaa qofkii inuu keeno arintaas waa arin sax waxayna keenaysaa inaad u raadsatay saad qabiilkaas uga argoosatid inaad ku biirtid xooga qolyo kaleeto oo maxaa la yiraahdaa xaq jirina si awood ku siyaaraad qabiilka u xasuuqdid wax keeni kara weeyaan aaminsana inay keeni karto dhanka kale markaan ka fiirino qofku xagga juqraafiga ama meesha uu degan yahay hadii maxaa la yiraahdaa uu xuquuqdiisa ku waayo la dhaho tusaale ahaan inta gobolada qaarkood oo kale inta laamiga saaran oo kale taa waxa la siinaya xuquuq helaysa ama meelaha remote area-da wiilkii dhalinyarada uusan internet heli karin uusan surface heli karin uusan waxbarasho heli karin taasi waxay keenaysaa inuu ka masayro kuwa kaleeto oo ku biiro cid maxaa la yiraahdaa uu ka heli karo waxa uu doonayo marka laga fiiriyo xagga age-ka hadii gabar ay tahay ama wiil ay tahay oo aqoon leeyahay oo xirfad leeyahay oo wadankiisa ugu adeego wax ugu qaban karo hadii la dhaho adiga age-kaagu ma saamaxayo inaad wadanka wax u qabatay ama booska ka soo baxdid taasina waxay keenaysaa inuu xanaaqo oo waxa dhici karta markuu ku biiro qolyahan maxaa la yiraahdaa terroristaha ama xagjiriinta haduu ku biiro waxa dhici karta in boos dhan loo dhibo madax looga dhiga dhici karta asagoo 20 jira marka waxa weeyaan wuxuu raadsanayaa meel uu maxaa la yiraahdaa uu qawaamo ka helo oo maxaa la yiraahdaa wax ku gareeyo raadsanaya marka dhanka kale laga fiiriyo xagga kalaanka ama xagga qabiilka kale hadii lagu exclude gareeyo la dhaho qabiilkaagu waxa weeyaan waxba ma gayaan awowga iyo awowayaashii ka soo horeeyay waligood wax ma hogaamin hadii lagu yiraahdo de waxa raadsanaysaa meel wax ka hogaamisid baa raadsanaysaa waad ka tagisaa taasina waxaan aaminsanahay inay tahay waxyaalaha keenaya radicalization keenaya marka laga fiiriyo xagga economiga marka laga fiiriyo ama resource-ga sida loo qaybsanayo hadii dadkii qayb kamida oo farakutirisa oo Maxamed iyo Cali iyo Zainab ay resource-gii maxaa la yiraahdaa ay gacanta iyagu ku haystaan oo kaligood keega cunayaan ay kaligood cunayaan ee dadkii kalena ay qatan yihiin khasab waxa way qofkan inuu ku diriro inuu ka qaato waxaad haysatid sababtoo asagu xaq wuxuu lahaa waxan inuu wax ka helo Soomaa marka uu kugula diriraya marka wuxuu raadsanayaa haduusan asagu kaligiis uu awood la'aan u yahay wuxuu raadsanayaa cid awood siisa uu kugula diriro waxan uu kaaga qaato adigu aad kaliga haysatid sababtoo ma wax kaliga lagu talagalay inaa cunto asba xaq buu ku leeyahay dhanka kale marka laga fiiriyo social statuska marka laga fiiriyo dad waxa jira xuquuqdooda ku waaya maanta haday soo tartamaan Maxamed iyo Zamzam ay shaqo soo tartamaan Maxamed haduu yahay ina ogaas iyo ina maxaa la yiraahdaa beeldaajo haduu yahay waxa dhici karta inay Zamzam ay waxba weeyda dhici karta oo qofka lagu siiyo mararka qaar kood oo wax ku helo qofkaasi statuska ama maxaa la yiraahdaa bulshada meesha uu ka joogo inuu wax ku helo dhici karta taasina waxay keeni kartaa qofkaasi inuu asna uu xanaaqo oo maxaa la yiraahdaa uu ku biiro waa u soo laabanaya wixii recommendation hadii lahayd waa gogosanayna waxaan rabaa inta aanan su'aasha kale u gelin on dambe lama gaarin laakiin arrinta noogu weynaan hadda ka hadlayna waxa weeye marka laga hadlayo youth radicalization in Soomaaliya gudaha Soomaaliya marka laga hadlayo waxa weeye waxa ugu xun oo aan jirin waxa weeye proper governance nidaam dawladeed oo dhammaystiran oo hagaagsan ma jiro haddii aan meel nidaam ka jirin dad meenis waxa weeye hadda inta noo dhaxaysa way marantahay Soomaa inta labada miis u dhaxaysa way maranta macnaheedu waxa weeye nidaamka ma jira halka ninkii doona wuxuu doona keensan kara waxa hadda ugu badan oo wadankeena ma taqaana ugu wanaagsan age bracket-ka 35 ilaa 30 dhalinyaradu ay yihiin
awl 75 baa la dhigi jiray hadda waaba la kordhiyay 81 80 waxay maraysa dadkan marka waxa muhiimadu waxa weeye in macno loo sameeyo haddii la sameeyo nidaam dawladeed oo isu dheelitiran oo isku si u adeegaya macnuhu waxa weeye marnaanta soo baxday way dhammaanaysaa laba wax baa marka root cause awli root cause-ka ku jirna inequality-ga dadka ka dhaxeeya sinaan la'aanta xagga deegaanka waxbarashada dhaqan dhaqaale iyo mid mataqaanaa ka qaybgalka waxa jira annaga waxaan ka hadalnaa political inclusion ama political participation ma aha Soomaaliya waxa jira nidaam la dhaho 4.5 marka dadku si caadi ah u arkaan waa wax xisaab caadi ah 4.5 waa laakiin waxa jira waxa la yiraahdo political power sharing and political settlements Soomaali waxay ku heshiisayba baalkan in waligiis lagu jiro 4.5 in waligeed noo taagnaato 4 qabiil baa waxay yihiin waa siman yihiin xabad baa saas waxa loogu heshiiyay in cadaalad darro lagu wada shaqeysto marka guriga cadaalad darro loogu heshiiyay halka cadaalad way imaanaysaa marka power sharing ku waa 4.5 laakiin political settlement-ku waa nidaamkii ama formuladii la marayo formulada diyaar uma nihin Soomaaliya waxa tiri cod baan qabanaynaa doorasho la geliyaa waxa lagu leeyahay 275 xildhibaan baa lagu salaynayaa 275 xildhibaan say ku imaadeen marka hore wali cadaalad darro laga shaqeynaya marka labada wax ee underlying faults ka ama root cause ka waxa weeye mataqaana inequality sinaan la'aan bulshada dhexdeeda oo weyn iyo political injustice cadaalad darro siyaasadeed oo la yiri waa lagu shaqeysanaya waana lagu wada joogaya labadaas waxay yihiin causeska ugu weyn ee dadkan ka dhigaya inuu extreme qofkan noqdo inuu intuu boqolkiiba ka yimaado zero imaado dhaho dadka la dhaqmayo bulshada ma rabo dhibteeda ka shaqeynaya waan isgubayna sabab waxa weeye qofkii ina uusan helin room wanaagsan oo ku noolaado aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan intaan solution ka gaadhin ka hadalkiisa bal in dhankiinana bal aragti ka timaado ama bal sida ay uga doodeen walaalayaal uga doodeen inaad fikir ka geysataan ama su'aal ka geysataan insha Allah gabadhaasaan siinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ruqayya Ismaan Cali waxaan u faraxsanahay in ku faraxsanahay in ka soo qayb galo madasha aadka quruxda badan oo laga hadlayo dhalinyarada iyo research-ka cilmi baarista inuu soo baxay waqtigii loo baahnaa ee xasaasiga ahaa waxaan looga hadlay qodobo xasaasi ah marka waxaan leeyahay anigu rabo inaan ka hadlo waxa weeye qodobka ugu horeeya horta fikradda khaldan ee laga qabo mataqaanaa diinta ama sunnada ama garka khamiiska inay tahay mid khaldan ee reer galbeedka naga aaminsiiyeen ama naga dhacsiiyeen inay tahay mid khaldan laakiin mid waxyaalo badan huwan issues badan bay huwan tahay oo kula jira haday wadamo shisheeye tahay iyo haday qabiilo tahay iyo haday interest kala tahaba way huwan tahay laakiin reer galbeedku waxay naga dhacsiiyeen inay tahay mataqaanaa mid kaliya oo keeni kara inay argixisada iyo waxa noocaas ay noqoto taasa keentay mataqaanaa ina Soomaaliya markay noqoto wadamada lagu tilmaamo aadka waxa uu shaqeynaa nahay tan kale waxa weeye ardayga markuu wax baranayo markay diinta tahay sanadada dambe waxa soo baxaya kooxo diimeed ku qaraabanay diintii kitaabkii waa barayaan laakiin waxay barayaan fikro kale oo aan fikradeen ahayn markaas qofkii dhalinyarada waxa lagu taabiyay in koox raaco oo mataqaanaa koox gooniya ka qayb galo sida ku dhacday dhalinyaro hadda mataqaanaa qaarkood la dilay oo waxyaalahaas lagu xukumay iyo qaarkood qaar u xiran oo kale ku dhacday in mataqaanaa marka si saxda ah ama kitaabka sunnada saxda ah inaan loo marin mataqaanaa la dhaho diintu waa in barayna laakiin waxyaalo kale ku huwan la baro interest kale ku jiro oo gacmo shisheeye mataqaanaa ay ku lug leeyihiin tan kale aan ka hadlo waxa weeye in fikir khaldan uu ka jiro siyaasadda anagu leenahay iyo diinta inay aad u kala fog yihiin baan arkaa inay aad u kala fog yihiin marka diinta dhahana marka saas tiraahdo waxay imanaysaa in mataqaanaa kooxihii
gaarka ahaa inay ku qaraabtaan oo dhahaaniin siyaasaddu mataqaanaa waa mataqaanaa wax gaalada u shaqeeyaan oo kale arrimaha siyaasadda wax ka shaqeeya gaalada u shaqeeyaanin waa dad noocaasa marka laakiin inay taasi mataqaanaa sidaa ka duwan tahay laakiin dhalinyarada markii kooxahaasi gacanta u galaan la dhaho waa dad siyaasadda waa dad noocaasa gaalada u shaqeeyaan waxa saal ka shaqeeya diinta kama shaqeeyaan marka taas waxay keenaysaa inay mataqaanaa siyaasadda ka qaataan fakar khaldan oo dhahaaniin marba waa qarxinayna ama waxa ku sameynayna ama wadankeena wax qaldan tan kale aan ku daray waxa weeye systemka good governance-gu inuu xun yahay oo mar walba mataqaanaa wadan waxaan runtii wallaahi bilaahi aan mataqaanaa aad ula yaabaa qofka idhaha waxaan ku soo bartay markii dawlad jirtaan wax soo bartay aad baan u qiiroodaa kolley waxa kacdoonada sameeya waynu iska garan karaynaayo waa dhalinyaro dalkana dhalinyara u badan war dowladaheenu horta dhalinyarada inay balaan u sameeyaan marka hore baa wanaagsan way qofkii hadduusan qorshaba lahayn markuu madaxa la kaco oo wax barto siyaabo badan oo kala duwan baa looga faa'iideysan karaa marka waxaan u arkaa in instruction of the young horta la sameeyo oo qorshe loo sameeyo oo qofka isagoo wax soo bartay oo wixiisi aan happy ku ahayn oo waxa weeye markiisii horeba isagoo markuu dhalinyarada wuxuu jecel yahay aan la garanayn buu soo baxayaa wuxuusan jeclayn isagoo bartay markaas siyaabo badan looga faa'iideysanaya marka wuxuu jecel yahay in lala sameeyo qodobka kale gabadha waxaad moodaa waxyaalaha aan qortay in iyaduna markii hore aan mas'uuliyad hayno waalidka iyo dhalinyaradu iskuma xidhna dhaqanka Soomaaligu wax weeye bartaas ku qariban yahay qofku markuu weynaado waalidkiisa ninkii dhalinyarada la saaxiibin markuu weynaado waxa laga yaabaa jaamacadii inuu hadhow ka baxo inankiyo ama lacagtiisa misrada uu jiray uu dhamaysanba ama qolooyin kale oo tirada gacanta u gala markaas oranaya wiilkaygii bartaas ugu dambeeyay marka markii hore uu la saaxiibin marka in dhalinyarada la saaxiibo arintan tirarka oo kale marka la baaro waxyaalaha ay ka faa'iideystaan waxa kamid ah dadka la hayb soco oo waxa weeye in kalaanka waxa weeye sheeg wixii cadaalad ay jirto oo aan hayb soco jirin waa qodob aad muhiim ah oo wixii cadaalad loo sameeyo xitaa haddaan cadaalad jirin kacdoonada iyo nabadgelyadu way isku xidhan yihiin nabadgelyo ma jirayso haddaan cadaalad xitaa jirin oo dawladdu ma dhismayso oo anigu haddaan buush seexdo oo dabaq dheer agteeda ku yaallo dabaqa dheer samsu dumin lahaa ma ka shaqeynaya waxaan rabaa inaan si guud arrinku weydiiyo waxyaabo badan baa la isku raacsan yahay sida golihiina ka muuqata arrimaha systemka waxbarashada waalidka iyo caruurta dhexdooda nidaamka dawladnimada laakiin arrin kaloo xiiso laba hadalka ka soo baxday oo macnihii hirdan u dhaxeeya siyaasiyiinta dhanka diinta u janjeera iyo siyaasiyiinta dhanka reer galbeedka ama hirdanka ka dhaxeeya sabab ma ku leeyahay problemnadan Soomaalida haysta ama abuuraya xagjirnimada Faisal waa mahadsan tahay su'aashaadu waxay u dhacaysaa laba qaybood horta aniga sida ii muuqata extremismku saadaasheeda uu sii badanayaa inta ay jiraan laba factor oo mid aan sheegtay midna anigu aan sheegayo hadda waa midda koowaad dhalinyartu waxaan isku raacsanahay inay tahay tamar iyo xoog soo kacaya oo ama wadanka burburin kara ama dhisi kara hadba sidii looga faa'iideysto haddii ay ku dayashadu khaldan tahay ya role model waxa loo yaqaan yani dadka islaamka oo dhan iyo qudwa xasana waa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam hogaan ahaan dhaqan ahaan bulsho ahaan wax kasta haddii uu doorku khaldan yahay iyo ku dayashada markaas hogaanka iyo dadka mataqaana elite-ka socialka political waxa way elite-ka ah hogaanka siyaasadeed kan bulsho oo aragtidooduna gaaban tahay exploitation-ka ama dhigmiirashooduna ay badan tahay waxa sii badanaya gaabkii ama waxa weeye space-ka u dhaxeeyay markasta fursadii qofka dhalinyarada ahaa haddaan ku jilciyo halka waxaan ognahay 4 sano kasta ama 5 sano kasta doorashooyin baa wadanka dhaca state level iyo federal level Soomahan cidii marka Ilaahay u garto xilka waxa jirta qolal oo circle of influence ku hareeraysan ya ku gadaansan qoladaas waa aniga adigoo kale dadka normalka waa ka mid nahay waxa weeye fursadaha ula midna
laakiin markay xukuumaddaasi dhammaato 4 sano ka bacdi waxaanu u jirsanaa intii markii hore aan jirnay inta caadku hadda inoo jiro Soomaaliya garan waxa laga yaabaa in da' kontonaad aan jirno ama soddonaad 30 sano hanti aan ku tabci waayay hadda 4 sano ku tabco yaa oo aan tuugna ahayn soo qofka soo dhalinyaro noqon mayo doorka uu tiigsanayo inuu dawladda galo yaa oo uu fariisto meeshaas si أو ganacsiga iyo hantida iyo boobka u helo waa xaqiiqada waddanka taala therefore inta ay taasi jirto waxa mar kastaba ku dhex jiraya waxa weeye jiraya fursadii iyo qofkii dhalinyarada inay kala fogaadaan bulshadeenu meesha u aqoonsan lahayd war hebel oo 50 sano jiro 54 markuu jiray waxa kan inta leeg dabaqyada tan iyo guryaha kan iyo gaadiidkan iyo hantidan boobka aan ku cambaarayno ku tilmaamno inuu tuug yahay ama ha cadeeyo sababtu ku keenay waxay noqotay mid lagu kala baratamo la dhaho alleelaha anaa amal ku taxad waxa ku dhiirado markay aan ku daydo taas waa qodob oo waxay ka qayb qaadan kartaa inaan qofka dhalinyarada uu xaq jir ka noqdo nidaamka iyo habka socda oo inagu aan abuurnay ma ahan mid la inoo keenay markaa midda labaad oo ah hardanka ka dhaxeeya waxa weeye siyaasiyiinta tiri waxa weeye liberalka iyo kuwa diinta u jarjeera waxaan rabaa in halkaas waxa weeye aragtideyda horta waxaan qofka soo dhalinyarada kula talin lahaa inuu aragtidiisa xor u yahay waxa suurtagal ah hadduu qof aragti saliima ka hadlo oo ku cambaaranaya nidaam waddanka ka jira ama ha noqdo mid maaliyadeed ama ha noqdo mid maamul ah ama mid garsoore inuu qofka la fadhiyo ku xiga u arko ka dhax akhristo inuu isaguna qabiil yahay qabiil la maagayo marka waxaan u baahanahay wax loo yaqaano xorriyad sumayna maqal waxa weeye xorriyadoonkii laba dhinac buu ka koobnaa mid ma taqaanaa cudud wax lagu doonayo sidii sayidkii oo kale iyo mid nabadaysan oo sidii SYL oo kale xorriyad runtii ka aragti oo ka dheer oo ka halgan badan baa u baahanahay oo ah dadku inuu xor noqdaan horta dadku inuu maskaxdooda xor noqdaan hadduu Faysal hadlo ama wax kirtaas gareeyo inaan ka fiirin karo inuu shakhsi yahay oo hadli karo wax samayn karo marka arka inay dulqaatid baa rabaa daqad baan ku dheeraanayaa ummad kasta system bay leedahay diinta doonta haysato qawaaniinta iyo heshiiska bulshada isku maamushana wuxuu ka yimaadaa dhaqankooda iyo diintooda inta u badan dawladaha reer galbeedka Christian values waxa la yiraahdaa dastuurkooda waxa weeye ku fadhiya يعني نظامكي waxa kitaabta inxiraafa ku sameeyeen Christianity-ga Nabi Muhammad Nabi Isa alayhi salaam injiish iyo Tawraadkii oo iyagu ay badbedeleen bay haddana qiyamka dastuurkooda ama heshiiskooda ku fadhiya Soomaaliya garan marka laakiin waxay ka guureen oo ay dhaheen hal la kala saaro nidaamka dawladnimada iyo nidaamka diinta marka history-ga raacid maxaa keenay marka waxa keenay dadkan waxa soo maray waqti ay culimadu wax kasta ahayd dadka loogu respect xushmad badan yahay dadka loogu kalsooni badan yahay dadka loogu aaminsan yahay waa iyagu diimahooda kala duwan haystaan kan dabka caadamoodaadkiisa dabka waxa way u fadhiya baa uu ahaa dadka loogu xushmad badan yahay marka waxay ka faa'iideysteen dadkaas aan ku fadhameeyo qiyamkii ay bulshada ka dhaxlahaayeen bay ka faa'iideysteen si khaldan u isticmaaleen maanta waxa soo badaxaysa dad badan oo culimo afkood ku hadlaya ama waxa weeye sheeganaya oo mar raba inaa u gafeeyo culimadu waa dhaxalkii ambiyada laakiin haddana dana gaar ah kaga faa'iideysanaya doorkii bulshada ku dhaxlahaayeen iyada uu jiro kuwa badan oo cilmaaniya oo diintii raba in dhaliilaan ama daldalo u sameeyaan ama nidaamka ay dhahaan waxa weeye ay dadka ka duwaan oo marna habaabiyaan marka fursadaasi dadkaasi waxa weeye iyagoo kitaabkii yaqaana oo diintii yaqaana oo waxa weeye ummadii indhaheedii ahaa iyo waxa weeye dhaxalkii nabiga kaleey salaatu wasalaam ay mataqaana sida khaldan looga faa'iideysanayo waxay keenaysaa inay fursad siiso kuwa badan oo aan diin haysan oo aragtiyo dad kala xambaarsan absolutely dad badan waxay ku talinayaan مثلا ururada dhibaatooyinkan lagu tilmaamayo inay sababta u yihiin dhinac kasta noqoto ama siyaasiyiinta noqoto ama kuwa kale ka soo horjeeda noqoto ama kuwa dawladaha noqoto dhammaantood inaysan madax banaani dhibaatada Soomaaliya taala aysan dadka Soomaalidu madax banaani u helin oo tusaale ahaan wax wada hadal baan lagu dayin ma isleedahay arrimahan la xidhiidha argagixisada waxay u baahan yihiin wada hadal in
dadka Soomaalidu ay ka galaan dhexdeeda xal ma noqon lahayd daraasaduna saas recommendationskii ama talooyinkii daraasaddu soo jeedisay waxa kamid ahaa inay dawladdu madal wada hadal fidiso oo dadka la hadasho intaana taagelin waxaan rabaa inaan layna mar habaabin dhalinyaro haddaan nahay yani terrorism ama extremism ama piracy waxyaabo badan waxaa jira mataqaanaa macnayaal badan adduunka u leh waxaana ku kala duwan tahay hadba meesha la joogo waxaan in argaxiso u arkaabaa nin halgandoon u ah Soomaali garan wuxuu mid burcabadeed u arko kugu leynayaa mid waxa uu tahay difaac marka terrorism tuhum argaxiso iyo argaxisowta ya burcabadeed iyo burcabadeed u tahay waxa la rabaa ma ogtahay inaanu markaan wax qeexayno ama fiirinayno aan ka fiirino ummad Soomaali ahaan taariikhdeena iyo qiyamkeena iyo diinta islaamka labadaba oo inagoo marka definition ama macna ay sameeyeen qolo laga yaabo in dirirtoodu diin ku saabsanayd aan qaadano aan kula dul dhacno markaas ma taqaana dadkii la rabay in ay ilaalsano birmageydada ahaa ya marka horta taas waa iga precautions waa digniin bay gata inaan waxa weey horta fiirino waxa aan laga hadlayo ama la rabo qofka inuu fahmo inuusan inta uusan faahfaahintooda iyo waxooda gelin aw ka fakaro war waxa kan yaa qeexay yaa siiri taas waa halka tan su'aasha ay weydiisada u soo laabto wada hadal de Soomaali waxa weeye dhaqankeedaba ku aan wada hadalna waa maxay aan wada heshiinay dhahdaa xalka oo dhan waxa lagu xiray wada hadal tabashooyin badan baa jira oo dhinacyo kala duwan oo isbiirsaday waxa midaysan qof tabasho bulsho wata oo sida haday la soo sheegay la hayb soo waxa midoobay mid kale oo tabasho siyaasadeed wata mid tabasho deegaan wata mid shakhsi wata marka waxa weeye waa la midaysan yahay oo waxa laga xaq jira hadba nidaamka socda laakiin ajendayaal kala duwan baa la leeyahay marka wada hadalku waa mid ugu wanaagsan oo waxa weeye bulshada ku badbaadi karto dad yar baanu nahay adduunka maanta dawladaha dariskeena oo laga yaabo cadaawad soo jireen oo ku saabsan dhul iyo waxa loo yaqaan iyo diinba ay naga dhaxan jirtay waxa weeye waxa laga fakarayaa qofkooda kamid ah inuu saacido ama ciyaar dawlad kale ama dad kale ku layn hal qof oo kamid ah ajnabi hadii maanta Soomaali lagu qabsado waxa lagu bixinayaa 2 milyan sidii loo soo badbaadin lahaa inagana dadkeena baaba'ay hal qof ka maarano waa yarnahay number yar baan nahay waa isnaqaana maanta daa Muqdisho tagtid ama Baydhabo tagtid waxa way hebel haysabto waxa la ina garatid hebel koow dhahdid waxa keenay yaraanta inaas naqaano waxaan daris lanahay dad halka waxa kamid ah daraasadu soo bandhigtay in la helo accountability macnaheedu dawlad mas'uul ah in la helo iyo in ciidamada Amazon oo qayb loo arkay inay kamid yihiin dhibaatooyinka jira ee Soomaaliya ama cadaalad darrada laga tabanaya ay kamid yihiin arrimahaasi oo dhan macnaheedu hadda u soo gudubnay waa okay anu waxaan qabaa Amazon wadanka mandate bay ku timi waxayna imaadeen 2006 marka waxaan rabaa su'aal inaan raacsado agaasimaha kadib aanteeda u soo gudbo hadda raalli iga noqotaan arinta wada hadalku mar kasta bini aadanka waa u furan yahay laba qof buu furan yahay laba group buu furan yahay laba xisb buu furan yahay laba dawladood buu furan yahay adduunka dhan buu furan laakiin waxaan rabnaa wax laga yaabaa Faysal iyo Cabdiraxmaan inay xasuustaan berigii dawladii Cabdullaahi Yuusuf ee 295 xildhibaan lagu dareeyay 295 kale ee isbahaysigii Asmara ee ARS qoladii la dhigi jiray Cabdiraxmaan Ashkuurkan hadda mucaaradka ah uu hoggaanka badanaa u ahaa waxa lagu wada hadli jiray wadamada meel kala duwan waxa ugu dambeysay Khartoum baa u malaynay Khartoum marka laga wada hadlayay mabaadi' baa lagu wada hadlayay ma ahayn aan heshiino aan wax isku darsano ma ahayn waxa lagu hadlayay mabaadi' nimanka ARS marka matalay ragii dumarkii isugu jiray mabaadi'doodu ma ahayn nimankan hadda xaq jirka ah waxay aaminsan yihiin ma ahayn shaab ma aaminsana calan ma aaminsana wadan ma aaminsana anigu ina islaam ahay ma aaminsana wuxuu ku leeyahay dib aan tawxiidku ugu qabto waxyaabo marka waxa jira principle la rabo intaan wada hadal la bilaabin in iyaga laga wada hadlo oo la dhaho mabaadi'dan ma wada aaminsana wadan Soomaaliya inuu jiro in calan leenahay in anigu islaam ahay
marka intaa la wada helo ay ogolaadaan intaa waa ogol lahay in wada hadal lala furo waxa kaloo la rabaa wada hadalka in shuruud lagu xiraado aaminsantahay wada hadalka fiiri kasta shuruud buu ka bilaabmaa laakiin wali ma ay dhicin baa la leeyahay wada hadal ay Soomaalidu hogaaminayso suurtagal ka dhigaya inay Soomaalidu wada hadasho maadaama inta dhimanaysa ay Soomaalidu ma waxaan doonaynaa in xaqiiqda sheegno Sheikh Shariif Xasan Sheikh farmaajo intuu waa saddex madaxweyne dalka soo maray mid walba wuxuu ku baaqaa wada hadal aan condition ku xirnayn inay wada geliyaan shaab ah noo yimaadaan wali ma aragtay groupkan nimankan ay soo dhiibaan baa laakiin wada hadal lama oran waa saamaxayna ma ay soo dhiibid waa mid kale oo waxa la dhahayaa cidii soo dhiibto groupka ka soo goosata waxa waaye waa soo dhaweynayna laakiin koolal waxa jira mararka qaar madaxdu sameeyso leeyahay wada hadal waa ogolnahay haday rabaan waa walaalahaya fiir termka loo isticmaalo waxa weey ninka iga soo jeeda walaalkay waa faanay wada hadal shuruudo ku xidhan ha marka arinta koowaad waa arinta labaad waxa weey anaga topic waxa doonaynaa specific ku ahaano waxa ka hadlaynaa radical ma aha argagixiso ma aha extremism dhibaatooyin badan intay iska raaceen xag jir noqday qofka radicalka waa from a step buu joogaa wuxuu rabaa inuu qofkani noqdo intano problem markay maskaxdiisa ku dirireen inuu isqarxiyo inuu group gaar noqdo inuu cid ku biiro si uu revenge cid uga argoosto laakiin qofka radicalka wali uu dhow yahay waa ka uu si muuqda marka xalka koowaad ee la heli karo waxa weeye medical religion dhanka diinta badana xaq jirnimadeedu way fududahay qofka ama waa la qaban karaa ama waxba loo sheegi karaa ama dhinaca mushkilada weyn ka imaato waxa waaye qofku problemska kale oo bulshada ka tirsanaya badana xaq jira baashan wajiga lagu qarinaya qofkani waa wadaad buu habal xaq wadaadka ah shalay mid aan naqaano wadaad ahayn ba shaab marka xalka koowaad waxa weeye marka u soo noqono horta dawladdu waa inay ayada maskaxdeedu ka gudubsan tahay aan kursi helo aan wasiir noqdo aan xildhibaan noqdo aan madaxweyne noqdo dawladdu waa inay ka gudubsan tahay dawladdu waa inay og tahay root cause ka sababaya waxaan qofkan uu radical noqdo waxa weeye waa fakhri waxa uu arkin laba faysal oo hadda dhinac fadhiya inay cadow isku yihiin waxa cadowgeena koowaad ah waa fakhriga haddaan dhaqaalaha haysto aan dhaqaalaha haysto soo eegmayno nin walba de ayaalkiisa reerkiisa gaarigiisa gurigiisa iyo shaqadiisa walaalihiisa ehelkiisa ku mashquulay laakiin marka mushkilada koo imaato waxa ninkaas uu sheegay dabaq dheer baa ku dhisa ana buush baa ku noolaa sida wada noolaaneen waa inaan dawladdu ay keentaan nidaam lagu wada noolaan karo oo ah ciribtirka fakhriga wax kasta fakhri bay ka bilowdaan wax aan fakhri ka bilaaban ma jiro marka xalka koowaad waxa weeye commitment wanaagsan leh laba programka ay la sameeyay saddex inequality-ga in la yareeyo inequality waxa lagu yareyn karaa waa fakhrigan oo la dhameystiro meelo kale oo dhibtu ka jirta mataqaanaa judicial kama law enforcement agents marka la isku daro maxkamadaha iyo booliisku problem dadka waxa ay ku sameeyaan mararka qaar uu qofku bulshada uga baxo dhibaatooyinka ay sameeyaan waxa kamid ah Cabdiraxmaan Hadaay wuxuu dhahay nin waa la dhalaa laakiin dhul lama dhalo soo sameysanayn dispute-ka ugu weyn ee Soomaalida ka dhaxdhaca wuxuu ka yimaadaa land dispute waxa la dhaho isku qabsashada dhulalka ama xal waara in loo keen waayo dhul annaga hadda Puntland waxa u badan dhul daaqsimeedka oo kala isku qabsana koonfurta waxa ka jirta qof dhul safar loogo 25 qof loo kala xukumay shantii qof mid boqor waa haystaa ya caaw markuu ugu dhufto waa life example waa arrin qof dhul baa waxa loo kala xukumay 5 qof mid ka mid ah qori soo qaatay mid buu ku dhuftay kii hadduu ku dhufto qoriga meesha dawlad baa joogto kuma survive gareyn karo maxaa weeye asxaabtu u tagayaan marka halkaas ku badbaadaya shaqadooduna la qabanaya marka adiga oo dawladii ah oo maxaakimkii ama maxkamadii ama booliiskii ah hadda dhibaatada ka shaqeys waxa badanaysa in dadku ka tago group kale loo tago waxyaalaha kale oo aan recommend gareyn kara waxa kamid ah waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad Soomaaliya waa qarnigii technology-ga source information-ku uu maxaa la yiraahdaa al helayahay in la control waxa dhici karta dhalinyartu inay iska daalacdaan internetka isaga jiraan da'yar weeyaan waxa dhici karta website-yo ay leeyihiin qolyahan maxaa la yiraahdaa xaq jirka iyo kale inuu iska daalacdaa dhici karta oo iska akhristo oo iska fiirsado oo fiiriyada iska daawado marka
caburin kama hadlayo laakiin waxyaalaha website-yada ay leeyihiin qolyaha xaq jirka ahi in la baloogarayo mararka qaarkood ama waalidkuba uu ogaado oo maxaa la yiraahdaa informationka uu ilmihiisu daalacanay inuu la socdo sidoo kale iskuulada in lagu baro ama waalidka laftirkiisu uu baro teaching maxaa la dhahaa teaching credibility waxa la dhaho ama information credibility aan dhahe oo ah xog marka la fiiriyo sidee u analyze gareyn kartaa xogtan inay xog sax tahay yaa xogtan soo galiyay xagee bay ka timid maxay xambaarsan tahay waxaas oo dhan inuu ilmuhu markuu wax arko waxaasa la yiri yuusa qofka dhalinyarada inuusan dhihin maxaa la yiraahdaa uu analyze gareyn karo xogta uu arko waxaan kaloo ku dari lahaa waxyaalaha looga hortagi karo qofka inuu radical noqdo waxaa ka mid ah partnership in la sameeyo ama coalition in la sameeyo isbahaysi in la sameeyo oo ay community-ga iyo booliiska isku xirmaan maxaa la yiraahdaa iyo culimadii iyo maxaa la yiraahdaa youth and leaderski iyo waxaas oo dhan inay isku xirmaan oo hadii arintaas oo kale dadkii laga wacyigeliyo isku yimaadaan oo caseska noocaas oo kale hadii la ogaado sidii wax looga qaban lahaa waxaas oo dhan isku xirnaanshahoodu macna badan buu wuxuu sameeyaa in laga hortago waxa la yiraahdaa radicalizationka sidoo kale waxyaalaha aan ku daray waxa kamid ah academic curriculumka in lagu daro waxa la yiraahdo ay Cabdulqaadir iyo ixta ay ka sharqamiyeen civicska ama waxyaalaha la dhaho wadaninimada oo dhalinyartii la baro inta yar yihiin citizenshipka in la baro maxaa la yiraahdaa oo la tuso dhulkiisu inuu dheeman yahay in maxaa la yiraahdaa dhibaatada loo soo maray aysan la fududaan qof maxaa la yiraahdaa dana maxaa la yiraahdaa kale ama dantiisa shakhsiyadeed ama meelo kale oo external hawlo kala wata inuusan ku adeegan oo dhulkiisa iyo dadkiisa dhiigiisa uusan daadin tan u dambaysa waxa weeyaan in dhalinyarta la empower gareeyo qofku markii uusan haysan shaqo uusan haysan ama xirfad uu ku shaqeysta uusan haysan waxa u fududaanaysa inay qolo kale engage gareysato sababtoo qofka dhalinyarada wuxuu leeyahay energy buu hayaa awood buu hayaa wuxuu jecel yahay inuu wax maamulo wuxuu jecel yahay inuu group uu ku darsamo buu jecel yahay oo uu raaco marka hadii markaas oo kale aan laga faa'iideysan de qolo kale ka faa'iideysanaysa marka waxaan dhihi lahaa anu intaasaan ku soo gabagabeyn lahaa maxaa dhahay recommendationkayga waxaan jecelahay hadda waa tartaranaysaana tii inaan u soo noqdo hal su'aal oo aad hadaayta weydiisay Cabdulqaadir iyo walaalo oo ahaa cilmi baaristuna ay soo bandhigtay oo ah in wada hadal loo furo maxaa la yiraahdaa qolyahan argagixisada ahaa negotiation runtii waa inaan isweydiinaa intee sana lala dagaalamayay qolyaha ka dagaalama Soomaaliya waa sanado badan haddana waa inaan sii weydiinaa ma jirtaa hal dekado ay haystaan ma jirtaa hal maxaa la yiraahdaa ay haystaan airport haystaan miyaa jirta airport haystaan ma jiro dekado haystaan ma jiraan hubna way helaan lacagna way helaan wax walbana way helaan intaasna way nool yihiin Soomaa meel alla meeshay doonaan inay wax ku dilaan way ku dili karaan marka anu waxaan aaminsanahay dadka ku jira halkaas inay yihiin dad kala duwan marka laga reebo dad dhalinyaro ah oo la engage gareeyay oo fariin khaldan lagu shubay oo lagu programiyay oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan toona aan garanayn la jaha wareeriyay marka laga soo tago dadka intooda kala ahi inta badan de lama wareysano sababta u dagaalamaya lama wareysano iyagu waxay soo arkaan inay xaq u dir yihiin fursad looma siin inay hadlaan oo ay cid la hadlaan oo danahooda ay ka hadlaan oo lagala hadlo waxay tabayaan tusaale ahaan shabaab waxay tabayaan wadanka in diin islaam lagu maamulo waxay tabayaan in Amazon iyo ciidamada shisheeye wadanka ka baxaan waxay tabayaan inay powerka laftigiisa wax ka yeeshaan saddex arrimood laga wada hadli karo dad baa aaminsan sidaas waataan ku soo wada waxaan ku yiri hadaan anigu fikirkayga marka la fiiriyo qolyaha al-shabaab dadna waa in la jaha wareeriyo dhalinyaro weeyaan oo iyagu waxay raaceen movementigaas iska raaceen oo waxa weeyaan waa la kiciyay oo waxa weeyaan cajilad baa loo daaray dadna waxa weeyaan waa dadka hawsha wata weeyaan iyagu dagaal lama galaan wax kale ma sameeyaan waxa weeyaan dadkan bay hagaan dhammaan asxaabta meel kasta oo joogtaan waa mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijkan waxaan u mahad celinayaa hay'adda Sidra oo barnaamijkan soo qaban qaabisay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Faisal Maxamed Mataan oo la taliye ka wasaaradda qorsheynta isla markaasna qoraa dhanka arrimaha siyaasadda wax ka qora iyo Fadhiya Cusmaan Faarax oo xubin firfircoon oo u ololeysa arrimaha dhalinyarada iyo agaasimaha waaxda nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland saaxiibayaal daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii oo inoo soo abaabushay hay'adda Sidra loogana wada hadlayay sidii bal loo yareyn lahaa xagjirnimada iyo waxyaabaha kalifa sidii looga wada xajoon lahaa inta barnaamijkan iyo kale mar kale isugu iman doono nabadgelyo